Ronaldo oo qaaday tallaabo uu Casemiro kaga hor istaagayo inuu ku biiro Inter Miami. Kabtanka Al Nassr Cristiano Ronaldo ayaa la sheegay inuu isku dayayo inuu ka dhaadhiciyo saaxiibkiisii hore ee Casemiro inuusan ku biirin Inter Miami xagaagan. Casemiro oo ka tagay Manchester United dhamaadkii xilli ciyaareedkan kadib markii aan heshiiskiisa la kordhin, ayaa la filayaa inuu noqdo mid ka mid ah ciyaartooyda ugu xiisaha badan suuqa. Kooxda Inter Miami ayaa doonaysa inay keento Casemiro si uu la ciyaaro Lionel Messi, taasoo dib u kicin karta iska horimaadkii caanka ah ee Messi iyo Ronaldo. Inkastoo markaan ay ka dhici doonto Mareykanka, laakiin Ronaldo ayaa doonaya inuu arrintaas ka hortago, isagoo ku riixaya Casemiro inuu u wareego Sacuudiga si uu ugu biiro Al Nassr oo doonaysa inay xoojiso qadkeeda dhexe. Sababta Ronaldo u doonayo Casemiro: khibrad sare oo Champions League ah inuu leeyahay, xiriir hore oo ay ku lahaayeen Real Madrid, hoggaan iyo difaac adag oo kooxda ka caawin kara koobab. Go'aanka Casemiro ayaa noqon doona mid xiiso leh. Miyuu aadi doonaa Messi mise wuxuu dooran doonaa inuu la midoobo Ronaldo mar kale? Hal arrin ayaa cad, xagaagan waxaa dhici kara mid ka mid ah saxiixyada ugu xiisaha badan suuqa kala iibsiga. Takoor diimeed. Lamine Yamal oo si kulul ugu jawaabay takoor diimeed oo lagula kacay kulankii Spain iyo Egypt. Xiddiga da'da yar ee Barcelona Lamine Yamal ayaa la sheegay inuu aad uga niyad jabay falal ka dhacay kulankii xulalka Spain iyo Egypt. Wararka ayaa sheegaya in taageerayaal ku sugnaa garoonka ay ku dhawaaqeen heeso ku lifaaqan takoor diimeed, taasoo si gaar ah u taabatay Yamal oo ah xiddig Muslim ah. Dhacdadan ayaa si weyn u dhalisay caro iyo cambaareen, maadaama ay ka hor imaanayso qiimka ixtiraamka iyo midnimada ee kubadda cagta. Yamal ayaa ciyaaray qaybtii hore ee kulanka, balse kadib wuxuu baraha bulshada ku muujiyay sida uu uga xun yahay dhaqankaas, isagoo si dadban uga hadlay muhiimadda ixtiraamka iyo wada noolaanshaha. Arrintan waxay mar kale iftiimisay dhibaatada takoorka ee weli ka jirta garoomada, iyadoo la filayo in hay'adaha kubadda cagta ay si adag uga falceliyaan si looga hortago falalka noocan oo kale ah mustaqbalka. Harry Maguire oo lagu soo oogay dacwad aflagaado ah. Daafaca Manchester United Harry Maguire ayaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta anshax xumo kadib kulankii ay la ciyaareen Bournemouth. Maguire ayaa casaan qaatay daqiiqadii 78aad ee ciyaartaas, waxaana lagu eedeeyay inuu si aan habboonayn ula dhaqmay garsooraha afraad, isagoo adeegsaday hadallo ama dhaqan aflagaado ah kadib markii garoonka laga saaray. Warar rasmi ah ayaa lagu sheegay in falka difaaca uu ahaa mid aan habboonayn, isla markaana uu ku lug lahaa erayo ama ficilo aflagaado ah oo ku wajahan garsooraha afraad. Maguire ayaa la siiyay ilaa 2 Abriil oo maanta ku beegan inuu ka jawaabo eedeymaha loo soo jeediyay, iyadoo la filayo in go'aan laga gaaro haddii lagu helo dembigaas, iyadoo ciqaab halis ah ay ka dhalan karto. Federico Valverde oo ugu dambeyn banaanka keenay cidda ka dambeysa guulihiisa Real Madrid. Xiddiga qadka dhexe ee Real Madrid Federico Valverde ayaa si weyn u ammaanay tababarihiisii hore ee Carlo Ancelotti, isagoo ku tilmaamay macalinka ugu dhammaystiran ee uu abid la shaqeeyo. Valverde ayaa sheegay in Ancelotti uu door weyn ka qaatay horumarkiisa, isla markaana uu ku beeri kalsooni. Ancelotti wuxuu iga dhigay inaan naftayda aamino. Wuxuu ii yahay sida qoys waan jeclahay, waxaana rajaynayaa inaan mar kale la kulmo. Wuxuu sidoo kale xusay sida tababaruhu uu kooxda ugu abuuri jiray rabitaan joogto ah oo guul ah, taasoo ka caawisay ciyaartooyda inay horumar sameeyaan. Tan iyo markii uu la shaqeeyay Ancelotti, Valverde wuxuu noqday tiir muhiim ah oo ka tirsan Real Madrid, isagoo sidoo kale ka mid noqday qaddaxyada ugu fiican dunida. Xil ciyaareedkan, xiddiga reer Uruguay ayaa si weyn u iftiimay, isagoo dhaliyay 8 gool isla markaana bixiyay 12 caawin. Waa nacas aan u qalmin calaamadda kabtanimada. Obi Mikel oo mar kale kabaha la dulmaray Enzo Fernandez. Halyeegii hore ee Chelsea John Obi Mikel ayaa si adag u dhaliilay Enzo Fernandez kadib hadallo dhayalsi ah oo uu kaga hadlay kooxda iyo mustaqbalkiisa. Mikel ayaa ku eedeeyay Enzo inuu muujiyay hoggaan xumo, gaar ahaan kadib markii uu ka hadlay guuldaradii ay kala kulmeen Paris Saint-Germain ee Champions League, isagoo sidoo kale shaki geliyay mustaqbalkiisa Chelsea iyo xitaa muujiyay inuu jecel yahay inuu ku noolaado Madrid. Isagoo ka hadlaya broadcastigiisa, Mikel wuxuu sheegay in ciyaaryahan hoggaan leh uusan si fagaara uga hadlin arrimaha noocaas ah, gaar ahaan marka uu xiran yahay calaamadda kabtanimada. Taasi ma aha hogaamiyenimo. Ma samayn kartid hadalladaas kadib marka aad si xun uga hartaan Champions League. Waa inaad ixtiraamtaa kooxda, calaamadda iyo taageerayaasha, ayuu Mikel yiri. Wuxuu sidoo kale xusay inaysan jirin ciyaaryahan ka weyn kooxda, isagoo Enzo ugu baaqay inuu ixtiraamo Chelsea, maadaama taageerayaashu ay door weyn ku leeyihiin guusha iyo mushaarkiisa.